Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaynu sameyneynaa keega loo yaqaano ananas cake. Waxaynu ka sameyn doonaa alaabta halkan aad ku arkaysaan. Inta aanaynu guda gelin waxaan idinka codsanayaa subscribe, like iyo share inaad nagu caawisaan. Sidaas iyo daawasho wacan. Hawshii baynu guda gelaynaa biidhnillah. Sonkorta brownka, ananas, baking powder, subag, daqiiq, sonkor iyo ukun intaa weeye laga sameeyay. Waxaan isku soo darnay 4 xabo beeda iyo koob sonkor ah. Aan isku qasi doono biidhnillah si fiican baynu isku qasaynaa ilaa intuu xumbo ka noqonayo 2 daqiiqo 3 daqiiqo haddii Ilaahay ka dhigo. Sidan uu ku soo baxay markaynu si fiican isugu qasnay qof walba uu iska garanaya oo keega sameeya. Masha Allah. Alaabti kale deedna diyaarsanaynaa. Daqiiqdii ayaynu iyadana diyaarsanaynaa. Cabirkeeda waxa weeyaan 1 koob iyo koob 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meel ahaan. Qofka aan haysanin cabirkan aan ku cabirayo kale ama miisaanka la saarayo sidaas uu ku garan karaa haddii Ilaahay ka dhigo. Baking powder baynu ku daraynaa 2 malqacadood oo kuwa shaaha ah. Ayaynu ku daraynaa biidhnillah. Kadib waan isku yara walaaqaynaa. Waa daqiiqdii iyo baking powderki. Subagii baynu dhalaalinaynaa lagu shubayay birta lagu gelinayo ovenka ka hooseynayay keega. Ananaska la dul saaray haddii Ilaahay ka dhigo. Isaga iyo sonkorta brownka baynu halkan ku shiilaynaa. Haddii aanad rabin inaad gaar u soo shiisho waxaad sameyn kartaa isla birta lafteeda ayaad subaga iyo maxay ahayd toolo iyo sonkorta ku dhalaalin kartaa kadibna ananaska saas dhakada ka saari kartaa. Waxa weeye koob barkii oo sonkortii brownka ahayda. Qofka aan sonkorta brownka haysanin sonkorta cad lafteeda ayuu dabka saaraya iyadoo kaliya markay midab fiican hesho ayuu subagana ku daraya. Subagu waa koob 4 meelood loo qaybiyay meel ahaan waa 50 gram. Ayaan soo cabiray. Maynu isku yara walaaqaynaa masha Allah. Qurux weeye. Kadibna alaabtii kale iyadana aynu isku diyaarsanaynay baan subagii u soo dhalaaliyay. Subaga waad ka yareyn kartaa 1 koob. Anigu hadda 1 koob baan ku daray laakiin haddii aanad rabin subag fara badan waad ka yareyn kartaa. Alaabtii kalena qurux bay isku noqotay masha Allah. Sonkortii si fiican bay isu dhex galeen iyo subagii. Waxaynu ku wareejinaynaa birtii lagu gelinayay ovenka. Masha Allah. Qurux brown weeye. Ananaski baan isagana soo furanay oo aynu dhex gelin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. Keegi 40 daqiiqo ayuu ku jiray ovenka 150 gram ayaan ku dubay. 150 ayaan ku dubay giraadar. Maxay ahayd toolo sidan ku soo baxay masha Allah quruxda ah. Ay fruit aad rabto fruitka ayaad maxay toolo ku isticmaali kartaa. oo haddaad u baahan tahay doonaysa inaad ku cuntid strawberry yaro muuse baan anigu hadda jarjaray. Double cream baad qasan kartaa oo aad ku cuni kartaa. Haddii kale sidiisa ayaad shaaha iyo kafeegaba ugu cuni kartaa. Marka masha Allah enjoy garee baan ku uli keegan waa inaad sameysaan xaafadda u sameysaan martida u sameysaan aad ayaad ugu qanci doontaa aad buu u macaan yahay. Ilaahay ha inoo shifeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.